Laamaha amniga degmada Beled Xawe ee gobolka Gedo ayaa faahfaahin ka bixiyay dil xalay ka dhacay xadbeenaadka u dhexeeya dalka Kenya iyo Soomaaliya, halkaasi oo lagu dilay qof shacab ah. Taliyaha saldhigga degmada Beled Xawe, Kabtan Daahir Dhiiri Cabdille, iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka degmada, Aadan Goodax Gooni, oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sheegay in dilkaasi ay geysteen kooxo hubeysan oo qowleysato ah, kuwaasi oo ku dhumaaleysta gudaha dalka Kenya. Saraakiisha waxay intaasi ku dareen in kooxahaasi ay marar badan dhibaatooyin amni ka geysteen xuduudda, isla markaasina ay halis ku yihiin shacabka ku nool deegaanada xadka ah. Sidoo kale, saraakiisha ayaa dowladda Kenya ka codsaday in tallaabo cad ay ka qaadaan kooxahaasi hubeysan ee ku sugan gudaha dalkaasi, isla markaasina ay labada dowladood ka wada shaqeeyaan amniga xuduudda iyo nabadgelyada deegaanka. alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaan salaamayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gaar ahaan degmada Beled Xawe inta ku sugan yihiin waaxigeeda. waxaan rabaa warbixin yar oo ku saabsan dhacdooyin shalay dhacayay ilaa xalay inaan warbixin yar ka dhiibo. dhacdooyinkaas shalay 11:50 oo taariikhdu ay ku beegnayd 14 bishii koobaad waxaa ka dhacay xuduudka dhanka Kenya ahaa qaraxaas waxaa naloo sheegay inay ku geeriyoodeen 2 qof oo ka tirsan askarta Kenya, dhaawacna ay jiraan. intii dhimatay waa ka tacsiinaynaa. xalay 5 saac iyo barkii nin baa lagu dilay xuduudka beanaadka Kenya iyo u dhaxeeya Soomaaliya, meesha la yiraahdo Tuule Amiin oo dhanka Chayga dowladda Kenya ay isticmaashay dhexdiisa. waxaan faahfaahinayaa marka waxyaabihii ka soo cusboonaaday ama ka soo kordhay. qaraxa ka dhacay meesha la yiraahdo xuduudka halka askarta Kenyaanka ay joogtay waxa weeyaan waa qarax kolley ciddii geysatay waa dib baa laga faahfaahin doonaa, balse warbixinta ama xog ogaalnimadanada intii aan heli karno ama aan ogeyn waxaa weeyaan dowladda Kenya ee dariska aan nahay waxaan la yaabanahay inay fahmi weydo waxyaabaha dhexdeeda ku jiro oo qaraxyada iyo dilalka joogtada geysanayay oo amni darrada abuurayay. niman baa waxay degan yihiin meesha la yiraahdo BB1. dhibaatada ka dhacday shalay ilaa xalay dhacaysayna iyaga ayaa geystay. waxaan ognahay niman amniyaad ah ka tirsan argagixisada Al-Shabaab, magacooda ama faraacda ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay ka sii yihiin loo yaqaan qaybta amniyaadka ee qaraxyada qaabilsan inay dhex joogaan nimanka nabadiidkaha ee dadkoodii iyo deegaankoodii nacay ee Kenya dhex joogo. dhibaatooyinka ugu badanna geysanayo xuduudkii labada dowladood u dhaxeeyay amni darrada ka abuurayay. waxaan baa qudariyaa marka dowladda Kenya oo aan leeyahay arrinkaas dib ha u fiiriso, hana u dhaxgasho, hana ogaato waxyaabaha dhexdeeda ka socdo. waxaan rabnaa marka inaan niraahno walaalahan Kenya daris baan nahay, wax badan baan wadaagnaa, amni baa naga dhaxeeyo, nolol iyo dana gaar ah naga dhaxeeyo. inay argixisada shabaab ay dhexdanada ka kuraabato oo dadkii ka dhibaatayso oo xaduudii xiranto oo dhib uu ka dhaco wax dan oo annagana noogu jira male, idinkana wax dan oo idinkugu jira male. waxa dhimanayo waa dadkii Kenyaanka ah mas'uuliyadeeda qaadeen. waxa la dhacahayo oo la boobahayo waa hantidii dowladda iyo dadka deegaanka ay lahaayeen. mas'uuliyadiina idinkay idin saaran tahay. waxaan rabnaa marka inaan idin niraahno war dhibaatada dhacayso sababteeda dadkii iska lahaa adinkaa guntiga ku haysto. dadkii dhibkaa xala dhacay geystay iyo kii shala galab dhacayba adinka dhexdiinnu ka imaanaya abaabulkii, adinka dhexdiinay ka imaanayaan dadkii dhibka geysanayay. ninkii xala la dilay dadkii dilay waa dad gudaha Kenya ka yimid, waa dad ka yimid meesha la yiraahdo BB1. dhibkaana halkaa ka geystay, kii ka horreeyeen ayagaa geystay. Cabdullah Sheekh Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka degmada Beled Xawe ee gobolka Gedo.